السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الوالد سلام ميل باد كجوجتين adduunka kusoo dhawaada barnaamijkeena cusub ama barnaamijkan maanta kaga hadlay 10 shil diyaaradeed ugu xumaa abid dhacay adduunka intii soo martay taariikhda intii la og yahay ayaanu maanta kaga hadlaynaa marka hore kusoo dhawaada channelkeena cusub ee Gmail qodobka 10aad waxaan ka soo bilaabanaa sida 10 ayaanu ka soo bilaabanaa koo ayaanu u geenaynaa 10 marka ka soo bilaaban macnaheedu waxa weeye 10 ayaa ugu fudud sida u kala dambeeyaan u sii kala khasaare badan aan ku soo dhawo barnaamijkeena American Airlines oo falaadkeedu ahaa 192 waxa dhacay shilka wuxuu dhacay 25 May 1979 diyaaradda waxa ku naf waayay 272 qof diyaaradda markii hore waxay ka ambabaxday magaalada la yiraahdo Chicago ee cariga dalka Mareykanka kadib markii ay ku dhacday tiir weyn oo aan ka fogaan garoonka diyaaradaha ay si kadiisa ugu dhacday xaggaas una khasaaraha badan ka dhashay Iranian Air Force markaan leenahay waxa weeye waa diyaarad military oo xamuul ka qaadi jirtay oo wixii dhacday February 19 2003 dadka ayaa waxay ku khasaaroobay ama ku dhintay ku naf waayay waxay gaarayaan 275 ruux Iran Air Flight oo socodkeedu ahaa 655 dadka wuxuu taariikhda ay dhacdayna waxa July 3 1988 dhacdadan waxa ahayd dhacdo muran badan dhalisay kadib markii xiisad ay ka socday dalka Khaliijka waxa sabab u ahayd dagaalkii ka dhaxeeyay Iraq iyo Iran kadib markii marka military oo badda saarnaa oo laga leeyahay dalka Mareykanka uu ka soo tuuray gantaal dalka Mareykanka waxay sheegeen inta aysan soo ridin inay 10 fariimood u soo direen aysan ka soo jawaabi waayeen sida markii 11aadna loogu tuuray gantaalka xaggaasna dadkii ay ku wada dhinteen waxaana ku naf waayay 290 qof كانت التطبيقات حق جرا ماليشيان ايرلاين او فلايتكيدو ها 17 taariikhda ay dhacday waxa weeye July 17 2014 kadib markay mareysay xuduudda dalka Ukraine markii ay diyaaradda Malaysia Airlines 772 ay ku duushay Amsterdam ka soo duushay dalka ay waxayna ku sii jeeday magaalada Kuala Lumpur lagu toogtay meel u dhow xuduudda dalka Ruushka ay u badan tahay ciidamada taabacsan Ruushka ee gacanta ku haya gobolka inta lagu gada jiray dagaalkii Donbass ee ka dhaxeeyay kooxaha goon-goosadka iyo dawladda dalka Ukraine dhammaan dadka 298 qof oo saarnaa way ku naf waayeen kaalinta lixaad waxa ku jira Saudi Arabia Airlines flightkeedu ahaa 163 oo markay dhacdeen waxay August 19 1980 khasaaraha waxa ku naf waayay 301 qof dadkii waxa la dadka badan waxa la qiiq kadib markii diyaaradda ay ka kacday matoorada qiiq ee dab ka kacay kadib bayloodadii diyaaradda waxay isku dayeen inay ku soo celiyaan diyaaradda garoonkii kadib diyaaradda hore ay kama aysan daabulin dadka waxay isku dayeen marka hore inay dimiyaan matoorka dadka oo gudaha ku jira kadib waxa dhacay dadkiina qiiq isku wada xiran dadka badanaana ay ku dhintaan qiiqa waxaana xagga ku dhintay 301 qof kaalinta lixaad waxa ku jira Air India flight oo ahayd flightkeedu ahaa 187 waxayna dhacday taariikhda markaa 23 June 1985 waxa ku naf waayay 326 ruux kaalinta afraad waxa ku jira Turkish Airlines oo flightkeedu ahaa 9 hal oo ahayd taariikhda ay dhacdayna ama shilku dhacayna waxa Maaris 3 1974 waxa ku naf waayay ama ku dhacay ku naf waayay meeshaas ku baxay 346 qof kadib waxa sababay khasaarahan ama diyaaraddan shilkeeda kadib waxa furmay meesha ay rakaabka alaabtooda saarnaa albaabkii dambe diyaaradda ay saarnaayeen alaabaha waaweyn boorsooyinkii iyo waxaalihii aan rakaabka furmay ayna fadhiin ayaa dib u furmaday kadib waxa daatay alaabtii culuseed oo dhan kadib waxay bayloodadu control way diyaaradda waditaankeeda xaggaasuna shilka ka dhashay kaalinta saddexaad waxa ku jira Japan Airlines oo flightkeedu ahaa 123 taariikhda ay dhacday shilkan waxa weeye Agosto 1985 waxa xagga ku naf waayay 520 qof shilka diyaaradda ugu weynaa taariikhda ayaa ahaa shilkii diyaaradda ee nooceedu ahaa
Boeing 747 oo ka dhacay Mountain Tagamagahara oo ku taala bartamaha dalka Japan. Kaliya 4 ayaa badbaaday markii ay diyaaraddu gacanta ku haysay baalasheeda. Waxa ay ku ruxeen burbur ka hor intuusan duulaan uu dhabarka uga soo dhicin kadib markii ay si xun u qaraxday dhinaca dambe ee diyaaradda ee natiijada ka timi shaqo dayactir. xagga dambe rakaabku ay furmatay xaggaasna dad badan ku baabeen. waxaa la furay shirkan, waxaa loo furay madaxaf dadkii ku dhintay lagu soo booqdo sawiradoodii la dhigo xaggaasna lagu soo booqdo sanad walba. intaas ay noogu egyihiin barnaamijkeena. kusoo dhawaada barnaamijkeena. haddii aad ka heshay waxay kula tahay commentiga noogu soo reeb. haddii aad wax fariimo ama waxyaalo kale aad u baahan tahay inaan warbixin kasoo diyaarin haddaa ogtahay noo soo qor. aad u mahadsan tahay daawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.